xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ay ka taagneed guux siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo culus oo mucaaradka ay bilaabeen kagana soo horjeedeen hanaanka filla soomaaliya ay u wado ama ay u wajahayso siyaasadda dalka ayaa waxaa markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay dareentay culays aad u xoogan oo ka imaanaya dhinaca mucaaradka ayaa waxaa markaasi shirki jaraa'id ama warqaddii ugu dambeysay ay soo saareen ay ahayd mid luuqad adag markaasi ay kula hadleen madaxda qaranka waxaana ay sheegeen in haddii la gaaro 16 bisha May aysan madaxweyne u aqoonsaneen xasan sheekh maxamuud isla markaana ay ka tashan doonaan jihada dalka uu aadayo wixii kaasi ka dambeeyey filla Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi qaadan waa ay u aragtay go'aanka iyo sidoo kale hadallada adag ee mucaaradka ka soo yaray waxaana markiiba warqad markaasi soo saartay filla Soomaaliya taasoo loogu baaqay dhammaan xubnaha golaha mustaqbalka in 10 bishan aynu ku guda jirno ee May ay ka soo qayb galaan shirka dhici doona filla Soomaaliya golaha mustaqbalka oo maalmo ka aamusnaa warqadda ka soo baxday filla Soomaaliya ayaa ugu dambeyn markaasi maanta waxa ay ka soo saareen jawaab iyo sidoo kale war xasaasi ah warqadda filla Soomaaliya ay soo saartay ee shirka ay ugu baaqday warqaddii ka soo baxday filla Soomaaliya ayaa waxaa markaasi lagu yiri dowladda federaalk Soomaaliya waxa iyada oo ka duuleysa arrimaha markaasi ku saabsan wada hadallada iyo sidoo kale in xal laga gaaro dhammaan isdiidooyinka ku aadan siyaasadda dalka ay ugu baaqaysaa golaha mustaqbalka inay 10 bisha May ka soo qayb galaan shirka dhici doona filla Soomaaliya warqadda oo markaasi filla Soomaaliya u arkaysay mid aqbali doonaan mucaaradka ayaa inta mucaaradka la gaarin waxa soo dhaweeyay qaramada midoobay iyagoo dhinacyada ugu baaqay in xal iyo sidoo kale miiska wada hadalka lagu laabto isla markaana heshiis laga gaaro dhammaan isdiidooyinka mucaaradka ayaa ugu dambeyn maanta waxa ay markaasi soo saareen go'aan iyo sidoo kale war xasaasi ah golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa waxa ay si adag markaasi ugu jawaabeen warqaddii ka soo baxday xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud golaha mustaqbalka ayaa waxa ay tilmaameen in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wada hadalladaasi laakiin waxay sheegeen in aysan dhici doonin in wada hadalladaasi ay ka qayb galaan ilaa la fuliyo 3 qodob oo miiska ay soo saareen golaha mustaqbalka ayaa marka hore waxa ay filla Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalk Soomaaliya u baaqeen joojinta dhammaan doorashooyinka la qorsheynayo inay dalka ka dhacaan gaar ahaan dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Banaadir taasoo ay ku tilmaameen inay tahay doorasho hal dhinac oo kaliya oo aan loo dhamayn isla markaana natiijadeeda cid walba ay og tahay halka ay markaasi aadi doonto waxay sheegeen in marka hore dowladda federaalk Soomaaliya haddii ay doonayso inay la fariisato golaha mustaqbalka wada hadalladaasina ay ka soo qayb galaan mucaaradka inay joojiso arrimaha doorashooyinka ee hadda markaasi filla Soomaaliya ay wado qodobka labaad ayaa waxa ay golaha mustaqbalka Soomaaliya ay ku sheegeen inaysan ka qayb gali doonin wada hadallada ilaa markaasi la helo gacan saddexaad oo samaysa damaanad qaad sax ah waxay sheegeen in dhowr jeer oo hore ama dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay la galay